بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض داوديال دمانتين كسو دوادا أصحابتا كحران channelكم سميرة يا أصحابتا عصوبة كعما فرن كسو دوادا بان لينهاي دمانتين إناد عافماد قبطان أيان دين رجينيا dad lagu cusub tahay channelka subscribe-ka noo saar insha Allah asxaabtaada la wadaag comment-ka iyo like-ta intaba nagu dhiirigeli aad baad mahadsantihiin maanta asxaabay waxa aan idin wadaa ama madbaqa Samiira maanta wuxuu idin wadaa khudrad kamid ah khudradaha cagaaran aadna u muhiima waxaan ku raraa khudradda magaceeda waxa la yiraahdaa muluqiya sidalkan ka arkaysaan wata ملوخية وجيت كسيدا وإيك كل أصحاب بدن أو كمدا داود يعشرة ويكرن كران أصحاب بدن نيني ما توجه الرئيس يا دعي كرتا ما أنت عين برانينا هذا هرو أرق ملوخية وحين صاين هرو شجني وحكمتي وحوي درت عقارن كسو بحاد دول كيله هاي نوغسو صاري ما شاء الله وانا دير آد وقنية وفي تمينة بدن له ما أنت وحين كهذا doonaa fawaa'ideeda muluqiyada iyo maxaan ku raada habka aynu u sameeysanayna muluqiya ayaynu insha Allah isla arki doonaa labada hab ayaynu maanta ku soo qaadan doonaa xalqadeenan muluqiyadu saad aragtaan waa geedka sidaas markuu isagoo soo baxa oo dhirtiyo caadiga ah oo dhulka laga soo jaray waxaan ku raaway wadankan way taalaa ma sha Allah عربتنا آد بوجبحذا آد نوالو باستعمالها وجيت كعانة لكن ودن كأنه كلو حنفليا إن يضو صيدنا قاعدو ما نكو عرق يضو كسر بحذا يلا صوت شري كل يوم وين تانك ورقبه حتى أنا تشريني ميكا إن مركب ملوخية ده فوائد ده هذا إنه كله وحوي إن حنقول هذا خضرات فيتامين بدن أوله شركة بنو آدم كهدي يعني استعماله waayo waxa ku jira fiitamiino badan sida la sheego fiitamiin A, fiitamiin C iyo fiitamiin E oo intuba jirka fawaa'id badan u leh waxyaalaha ay muhiim u tahay waxa weeye waxaan muluqiyadu waa khudrad waxay ka mid tahay khudradaha low cholesterol-ka ah sidoo kalena waxa weeye dietary fiber ama waxa weeye cuntooyinka gan kale baan orkana sida caloosho kale deegan u sameyn kara waxyaalaha ay ka dawatahayna kulley inta badan majority dadku ay u yaqaanaan waxa weeye baashan in loo isticmaalo marka qofka caloosha taagan tahay oo kale in ay caloosha bixiso ama ay caloosha socodsiin karto qofka intaasun marka fawaa'ideedu maaha fawaa'ideedu waxa weeye waxyaalo aad u badan lama soo koobi karo laakiin inta inoo ka naqaano waxa weeye calool istaaga iyo in qofka markay anemia ama dhiig yarida ku dhacdo oo kale ay dhiiga u soo celiso marka anigu maanta xoogaa fawaa'id kale oo ku sii biirin doonaa inta insha Allah oo aan ka arkay meelo badan ka akhriyay marka waxa weeye xagaas dheefshiidka aad horta ugu fiican tahay dadka caloosha casiraad oo kalena wuu fiican tahay maadaama ay ka mid tahay cuntooyinka gan kale xagga dhiig wareegana wuu fiican tahay maadadii iron ayaa ku badan ya oo maxaan ku radaa qofkii haduu 7 casho cuno cuntadan inta badan maxaan ku radaa waxa la sheegay ilaa 7 casho inay dhiiga ugu soo celinayso dadka dhiig yaraanta waliba sida dumarka xaamilooyinka ama uur kale sidoo kale iyaga calool istaaga oo ka fiican tahay waayo gabadha uur kale waxaan ognahay bilaa horeeya in calool istaageedu iska bato oo maadaama ay xanuuno iskaga imanayaan oo cunto yaraan ay ku dhacayso gabadha markay uurka bilaa horeeya ku jirto dhiigana hore uga soo celinaysaa aad waliba dumarka xaamilooyinka inay isticmaalaan waan kula talinayaa blood pressure-ka ama dhiig karka oo kale hoos ayay u dhigtaa maxaan ku raraa inuu qofka dhiiggiisu kor u kaco maadaama oo ay hoos u dhigayso milixda jirka ku jirta ya maadada potassium baa ku jirta potassium-kuna waxay hoos u dhigtaa milixda jirka ku jirta sidoo kale wadnaha garaaciisu inuu si normal u shaqeeyo ay sahashaa xanuunada soo weerarayana way ka hortagtaa maadaama oo ay vitamin A iyo E iyo C ay ku jiraan waxaan oran karnaa
waxa weeye waa immune booster ama waa waxyaalaha difaaca jirka kor u soo qaada oo maxaan ku raahdaa vitamin C gu inuu ognahay wuxuu si fiican u sahlaa inuu shaqeeyo white blood cellska ama unugyada dhiigga cad unugyada dhiigga ama dhiigga qaybta cad baynu oran karnaa sidoo kale vitamin E iyo eeduna waxay ka qayb qaataan waa antioxidant skinkana waxay ka difaacaan wixii xanuuno badan ay ka difaacaan soo weeraraya inflammation ko kale ama caabuqa sidoo kale waa ka dawo oo vitamin E ga dadkaas caabuqa waa loo qoraa marka vitamin E go kale waxaan oran karnaa inflammation ka wuu fiican yahay marka maasha Allah de waa khudrad wax badan qani ku ah siyaalaha aynu u samaysanayno ayaynu u guda geli doonaa insha Allah waanaynu isla arkaynaa waxyaalaha halkan yaal baan ka samaysanaynaa halkan 2 xabo basal oo waaweyn ayaan ku soo jarjartay halkanna toon ayaan iyadana sidoo kale ku soo jaray ama ku soo hoolay halkan waxay taalaa kamsarta shiidan yaro filfila xogaa yar milixa halkanna digaag yar ayaan ku darsanayaa digaalka qaybtiisa sadriga ama laabta marka waan isla arkaynaa saynu samaynayna insha Allah haddaan bilaabanayna saad u jeedaan asxaabay halkan waxaynu ku soo waxaysanay waxaynu ku soo shubanay halkan basasheeni iyo wax yar oo saliida yar mardhow marka aynu digaagii waxa ku darnay isla bislaato waynu arki doonaa waynu ka yara miiri doonaa marka ugu in yar saliida basashu inoogu casaato ayaynu ku soo shubanay oo aan aad u badnayn marka basashu inta inoo soo casaanayso aynu yara sugaynaa okay basashu markay saa inoogu soo casaatay waxa aynu ku dari doonaa waxa weeye kamsarteeni iyo filfish iyo milixdii intaas aynu ku daraynaa waxaan kale ku soo darsanaynaa digaageeni waan soo maydhanay si fiican baad iskaga soo maydhaysaa digaaga hal yar baa lagu maydhaa iyo liin dhanaan waan iska wada garanaynaa intaa haddaadan haysana milix ayaad ku maydhi kartaa si fiican ayaynu iskugu soo yara karinaynaa wax yar oo biyo ah ayaynu ku soo darsanaynaa si uu digaagu si fiican inooga bislaado insha Allah daboolka ayaynu xoogaa yara saaraynaa markaana waynu arkay malaaqiyadaynu ku darsanaynaa insha Allah okay asxaabay sidaad arkaysaan halkaa waxaa soo ururtay saliidii yarayd waynu ka miiraynaa saliidda saas aynu ka miiraynaa maraqa khaliya ayaynu la hadhaynaa okay marabno saliidda hore marabno waynu ka wada miiraynaa maraqa iyo digaagun baynu kala hadhaynaa saas aynu kaga dhammaynaynaa saliidda markaynu saliiddii ka miirnay aynu ku yara shiilay basasha iyo digaaga waxaynu haddana ku dari doonaa muluuqiyadeennii aynu halkan kusoo shubanay wataa waxa weeye waa alaab isjiidanays dareer inuu ku jiro sidii baamiyaha ayaad moodaa ka xoogaa yaro biyaan ku soo darsan doonaa xoogaaga biyaha ah ayaynu ku karinaynaa waxaan sameynaynaa insha Allah
markay karto xumbo yar oo cad xumbada cad markay xumbadaas aad u soo kar baxaysa taasaynu ka yara iyadana aynu ka dhuraynaa way macaankii ka qaadaysaa hadii kale intay soo yara karaysiin sugayna insha Allah ilaa 20 daqiiqo daboolkiinu jiidina waxyaalaha kale aynu ku daraynana markaas aynu isla arkayna insha Allah aynu soo karto sida markay noogu karayso markay say noogu karayso muluqiyadeeni waxyaalaha cad maragt waxyaalaha cad xumbada ah ayaynu ka qaadaynaa si ay muluqiya green ah oo aad macaan qurux badan noogu soo baxdo waxyaalaha xumbada baynu ka qaadaynaa asaan kaga soo dhameynayna insha Allah kaynoo soo adkaatay ayaynu ka dhigi doonaa wixii harayna ku dari doonaa insha Allah okay asxaabey markay sidaas biyihii noogu soo yara gursatay inoo soo bislaatay 20 minute meelahaas ayay saarnayd lindhanaanta jeexa lindhanaanta ah ayaynu ku darsan doonaa saa markaynu jeex lindhanaan ugu darsano waxaynu yara dhigan doonaa ayada gees baynu yara dhiganaynaa waxaynu dabka saaran doonaa toonteeni malqacad subaga ayaynu halkan ku soo ridanay digsigan yar saad aragtaanba waxaynu ku soo darsan doonaa toontii aynu soo hoolay saynu ugu yara casaato toonta muluqiyada ayaynu dhakada iyadana kaga daraynaa insha Allah udgoon caraf maasha Allah macaan qurux ayay soo baxaysaa marka dhakada lagaga daro muluqiyada habkani waxa weeye waa habka ugu fiican uguna fudud ee muluqiyo loo sameeyo iyadoo yaanyo loo sameynayo way jirtaa haba badan oo kale loo sameeyo iyadoo toontan la horeysiinayna way jirtaa laakiin markay caraf ahaan iyo udgoon noqoto habkan baa ugu wanaagsan inuu yara casaynayna toonta inta yara subaga ah malqacada yara subaga waayo waynagii saliidii hore aynu basasha ku shiilay waynagii ka wada miirnay markaynu biyaha ku karinaynay basasha iyo digaaga ayaynu saliidii hore dhan ka miirnay marka malqacada subaga ah iyo toonta yar oo caraf ahaan aynu uga dhigayno ayaynu ku darsanaynaa kala iska arag udgoon iyo macaan leh asxaabey say noogu soo casaatay toonteeni haddaynu ku darsanayno muluqiyadii ayaynu dhakada kaga daraynaa toonta udgoon iyo caraf iyo maasha Allah de macaank wax kasta markaa waad ku cuni kartaa bariis waxaan ku dhahdaa laxoox sabaayad dee wax kasta way kuu gelaysaa inkastay bariiska aad ugu macaan tahay marka bariis loo samaysto weliba bariis halkan oo bariis Masri ay yidhaahdaan bariiska yar inagu booshadaynu naqaanay kaas marka si fiican aanu kaaga jilcin si fiican loo sameeyo aad bay ugu soo baxdaa heer sare bariiska shicriyadiis saasay noogu bisashahay oo ay noogu soo baxday muluqiyadeeni ugu dambeyn asxaabey maasha Allah saasay noogu soo baxeen bariiskeeni shooriyada lahaa iyo muluqiyadina waa taa maasha Allah
heer sare soo baxeen. Please channelka subscribe, like, share, comment inta bayaan laga ilaawin. asxaabtaadana la sii share garee. soo tijaabi insha Allah malqiyadana hadday tahay markii kugu horeysay sida macaanka badan leh ayay noogu soo baxday. bariiskeenina oo ka soo sheeg insha Allah bariiskana saloo sameynaya haddaad u baahan tihiin waan idin la wadaagaynaa mar kale isagana oo ka maasha Allah.